السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنالك نوايا جنالك شيء مشرفاية ولا لها يجا قدرنتي يجا مدانا كلنا جنالك يجا يوتيوبك waxaa ilaahay hadda hore ila joogteen oo kuma santiin joogsten oo ruuxi badan haday ku cusubtiin welcome gacmo furan qalbi furan iyo waji furan ku soo dhawaada maanta maxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuca maanta u soo fariistay meeshan aan ka hadlayo maxaa waaye waxaan rabaa inaan ka hadlo iskoolada wadanka Masar ama magaalada Qaahiro caasimadiisa. Okay, gabdho badan oo Soomaaliyeed oo ku kala nool dunida daafaheeda ayaa soo weydiiyay mawduucan iskoolada wadanka ka soo hadal mawduucyo badan bay soo weydiiyeen laakiinse maanta waxaan rabaa inaan iskoolada aan ka hadlo. Okay, iskoolada wadankan walaalahay haddii aan idinkaga sheekeeyo ama aan idin sheego mawduucooda ama qiimahooda, iskoolka ugu raqiisisan ee ilmuhu ku dhigan karaan ama idin dhigan karaan ilmuhu حوالي waxaan ku qiyaasi karaa $1,500 oo dollar waa qiimaha ugu yar ee ugu fudud ay idin sheegay. $1,500 markaan ku leeyahay macnaheedu ma aha in aad bixinaysid bil 2 3 4 6 ma aha, macnaheedu waa sanadka kaamilka ah ee ilmuhu iskoolka ku dhiganayaan. markii aan qiimeeyay oo aan lacagta dollar ahaan u sarrifay ama aan ku qiimeeyay, waxaan ku qiimeeyay iskoolada ugu raqiisisan ama ugu qiimaha yar ee ilmuhu ay dhigan karaan ee wadankan ku yaala in uu yahay $1,500 sanadka kaamilka ah. dabcan kuma jiro maxaa la yiraahdaa gaarigii ama baskii ay raaci lahaayeen lacagtaasi, waa lacagta iskoolka oo kaliya. lacagta baskana waa sidoo kale iyadana way ka badan tahay intaas, yani gasti waxaan ka wadaa way ka baxsan tahay $1,500. marka walaalahay iskoolada ugu raqiisisan markii aan waliba aniga hoos idin kugu dhigo ayaa wuxuu noqonayaa $1,500. Okay, iskoolada ugu qaalisanna 2,000 iyo xoogaa weey, 2,200 iskoolada ugu qaalisan sanadkii weey. waana ka baxsan yihiin maxaa la dhahaa waana ka baxsan yihiin baskii, laakiin waxa idin kugu jira lacagtaas buugaagtii ilmahaas iskoolka ku dhigan lahaayeen waxay ku jiraan lacagtaas aad bixinaysid oo iyaga ayaa u soo gadaya. Okay, buugaagta waxaan ka wadaa buugaagta ay dariska ka qaadan lahaayeen oo iskoolka looga baahnaa. Okay, mawduuca iskoolada sida tan weeye. iskoolkii haddii مثلا ilmaha aad keentid wadanka oo ilmo uu yahay iskool gaaray waa ina iskool geysid. dabcan Soomaalida qurbaha ku nool ama dibadahaas Yurubta iyo Mareykanka iyo meelaha ku nool, Canada iyo meelaha ka yimaada meesha waxay u soo doontaan waxbarasho diiniyan ah ay u soo doontaan. marka ilmo iskool gaaray hadduu yahay dabcan waa ina iskoolka geysid waaye, laano maxaa yeelay ilmo iskool gaar hadduu yahay waxay qaadanayaan ilmihii iskoolka aad geynaysid waxay ku qaadanayaan ciqaamadda wadanka ay ku qaadanayaan. haddaa iskoolkii geysid ilmihii iskool dhigto, iskoolka ilmahaas uu dhigto ayaa warqad soo diraya, warqadaas oo ay soo dirayaan maxaa la yiraahdaa meeshii aad ka qaadan lahayd ciqaamadda. sidaas ayaadna ciqaamadda ku qaadanaysaa. ilmaha marka hadduu iskool gaaro, ilmo iskool kuu gaaray uu yahay, waa inaa iskoolkii geysid si wadankii uu si saniya ugu noolaado uu ciqaamadana u qaato. ilmo yar oo aan iskool gaarin hadduu yahay, adiga iyo walaalihiisa iskoolka dhiganaya ayuu ku qaadanayaa sharciga wadanka ama ciqaamadda deganaanshaha wadanka. xadaanooyin way jiraan iyagana sidoo kale ilmaha la geysto. xadaanooyin oo carab ah way jiraan. xadaano hadda meeshan aan deganahay waxaa ka furan xaafadda waliba la yiraahdo taasic, khaasatan Madiinatu Nasr xaafadda taasic waxaa ka furan xadaano gabar ama maamo Soomaaliyeed ay leedahay oo Soomaalida badankoodu ay ilmuhu u dhigtaan ayaa halkan ka furan. iyagu xadaanooyinkii qiimahooda saa uma badnaa, bishii ayaa wax bixinaysaa. kuwaba waa qiimo, kuwa bishii $100 la bixiyaa way jirtaa, kuwa bishii $150 la bixiyaa way jirtaa, kuwa bishii $50 la bixiyaana way jirtaa. ilaa iyo $60-70 baa ugu raqiisisan. $150 way ugu qaalisan tahay xadaanadii bishii. subaxdii aad geynaysaa ilmihii oo laga qaadaya, adigana gaariga qaadaya shaqo ku leh oo iska bixinaysid, maahan inay xadaanadu gaariga ku keenayso. subaxdii laga qaadaya, bacdi casirkina waa lagu keenayaa ama 2 duurnimo ama 3 galabnimo waa lagu keenayaa ilmaha lagu soo celinaya xadaanada inta soo dhameystaan. Okay, taas waa taas xadaanada. dhanka guryaha kiradoodu qayba waa nooc weeye, isku qiimo ma ahan.
saddex qol meelahan waxa ugu badan saddex qol iyo laba musqul iyo jikadiisii iyo fadhigiisii intaasaa ugu badan meelahan guryaha ku yaalo laana waa ma ahan yani filooyin ma ahan meelaha waxaa waaye inta u badan yihiin waxaa waaye apartment ama waa dabaqyo dhaadheer marka shigo walba waxay ka kooban tahay saddex qol laba musqul kuwa saddex musqul haysta xataa way jiraan laakiin intooda badan baa idin sheegaya waxay yihiin laba musqul iyo jikadii fadhigii iyo saddex qol intaas ka kooban yihiin marka qiimuhu isku mid maaha guryo way kala qaalisan yihiin kuwa 5,000 oo riyaa 5,000 oo gini oo wadankaana jira kuwa 6,000 jira kuwa 7,000 jira waa gini ma aha dollar waxa idin sheegayo kuwa 7,000 jira kuwa 7,500 8,000 يعني مثلا 5,000 marka idin leeyahay 5,000 waxay u dhigantaa saan u malaynaayo 300 oo dhadhawayaan 300 oo dhadhaweeyay 200 weeye 300 maana adu 400 oo dhadhaweeyay marka 5,000 oo wadankaana waa 400 oo dhadhow maxaa la yiraahdaa ama 350 6,000 ayaa waxay tahay 400 oo gow ah 6,000 waa 400 oo gow ah okay 8,000 mumkin waxay noqonaysaa 500 iyo xoogaa bay noqonaysaa adoo 400 oo dollar 500 oo dollar 600 oo dollar 700 oo dollar weeyaan guryaha qiimahoodu filooyin way jiraan iyagana qofkii filo raba filooyinkuna way qaalisan yihiin 10,000 kuwa ah oo wadankan ah kuwa waxay yihiin dhowr iyo 10,000 marka isku qiimo yani gurigu intuu la eg yahay meesha ku yaala ay ku xiran tahay laakiin idinka muhiimiyadiina waxa waaye wadankii ma ku noolaan karnaa oo ma deganaan karnaa waa ku noolaan kartiin waana deganaan kartiin haddii sida saxda ah aad ugu dhaqantaan wadanka gudihiisa sida saxda markaan ka wadaa markaa wadanka saa u timaadaan maadaama aad deganaasho wadanka ka rabtid inaad ku deganaatid horay waa inaa ilmihii aad iskoolka geysid bishaas inta aad iqaamada haysatid ama fiisaha uusan kaa dhicin waa inaa ilmihii horay iskool ka geysid iskoolkii horay markaa ilmihii ka geysid dabcan iskoolkii aad geysay ayaa sharcigii ama iqaamada wadanka ku fasaxaya in aad qaadatid marka haddii aad iskool ama jaamacad ama wuxuuna ilmuhu ku dhiganayaan ayaga ay iqaamada ku qaadanaysaa dabcan ilmaha iskool gaaray group ma haysanaysid iskoolka ayaa geynaysaa dabcan si uu iqaamada u qaato ilmahan iskoolka gaarayna hore bisa idinku sheegay ama walaaladiis ama adiga iyo wixii wax baranayo ayuu ku qaadanaya adiga dabcan muhiim ah inaad wax baratid muhiimiyadu waxa waaye ilmaha ayaad ku qaadanaysaa sharciga aad doonaysid ilmaha adiga iskoolka ku dhiganayo adigu aad gashay ayaa ku qaadanaysaa marka way fahanteen baan u malaynayaa xooga ma aqaan waxba ay qaylinaya ka raali ahaada qayladaas marka way fahanteen baan u malaynayaa walaalahayga qiimaha ay qadaranta iga mudan dhowr jeer ayaa tirahdeen ka soo hadal mawduucaas dabcan wixii kaleeto u baahan tihiin inaad idinkaga soo hadlaya xoogaa fursadaha ayaa igu yar saas awadeed ayaan meelo badan vlog uga soo duubi waayey waana idiin soo wada vlog qofta badnaa igu sugayseen waa ku mahadsantihiin sida ay dhiirigelisiin iyo sida ay la socoteen waa isoo weydiin kartiin su-aal kastoo aad qabtiin waxaan idin leeyahay idinka ayaa waxda ku ahay subscribe dhaha janalku waa janalkiini asxaabtiina u shaar garaaya si ay asxaab badan oo waxaa jirta qurbaha ku kala nool oo isoo weydiiyey su-aalahan ay idinka isoo weydiiseen asxaabihiina iyo dadkiina u shaar garaaya si ay fikradda ay ka haystaan masar ay uga qancaan ama ay uga ay u fahmaan fikraddaas iyo mawduucan ka hadlaya si ay u qaataan ama ay u fahmaan mawduuca dad badan oo waxaa jira masar u soo socda oo su-aalo badan iga soo weydiiyey waa ku mahadsantihiin joogistana quruxda badan sida ay dhiirigelisayaan janalkiina waaye subscribe-aha share dhaha gambareelka taabta si ay video kasta idiin soo gudbiyo oo idiin soo gaaro asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh